مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل بسم الله الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعد ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى يا مهدله إن جرسيي إن بشي رمضان صونه وأنا فضلي يديق إلهي سبحانه وتعالى أحبابي وحين سوق هذا الني حلقة له رئيسي مكانة أيلا هاي صانكو إيا فضلك أوليه إلهي سبحانه وتعالى وسيي حلقتنا لبعض إن شاء الله وحين قادن دونا حبكي أنو قفا إيدي سلهين بشهر رمضان بركيسر إلهي سبحانه وتعالى وإن قارسيي لأنه وحاوبة هانتهاي فضلك إيا ديغدا إلهي سبحانه وتعالى ينسي إن لا إله شضو ودرن يضا لقدبو خيرك إيا وناقي حنبار سنتهينا لقاتو ayay u baahan tahay qodobka ugu horeeya qofka muslimka ah waa in uu markaasi jawaarixdiisa oo dhan uu ka ilaaliyo macaasida Ilaahay subhanahu wa ta'ala una u isticmaalo taacada Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo khayrka Ilaahay inuu isticmaalo laana rasuulku alayhi salatu wassalaam wakiilaha badana dad badan oo sooman oo soonkooga wax kale aan ku taransanayn ilaa gaajo mooyaane badana dad badan oo soo jeedkoogaasi wax kale aan ku daransanayn ilaa iyo markaasi soo jeed mooyaane marka in aynu ilaashano oo xubnaheena macaasida iyo xumaha ka ilaalino ayaa la inooga baahan yahay qodobka labaad waa in markaasi aynu ku dadaalo qiyaamu layl habeenkii inaynu oogno على أقل إن صلاة تراويح لا أتكي أو لتكده أيا لا إنوجا بهايه رسولك عليه الصلاة والسلام وكيلها من قام رمضان قفك مركاسي أو قبش رمضان يسوع إلهي سبحانه وتعالى أجر كرجينيا غفر له ما تقدم من ذنبه وحل الضافات ذنبه أي رسولك عليه الصلاة والسلام ويلي وحكلوا لي إنوجا بيحبابي في الله وأنك جفا إيدي سننا أخرنت قرآنك بشن وبشي إلهي سبحانه وتعالى وكتل ما شهر القرآن وبشي قرآنك إن أخرنت قرآنك أينو بدنه دقيسك إي أخرنت با إن أينو بدنه سأنو كجفا إيدي سنو بشا بركيسن أي لينو بهاي وشهر القرآن وبشي بركيسن هذا القرآن كإلهي سودجي وبشي رسولك عليه الصلاة والسلام قرآن كأدو أخري جرين مع الجبرائيل صحابة رسولكنا عليه الصلاة والسلام أدب وأخري جرين إن أنك قد ينو oo inaguna markaasi aynu quraanka akhrintiisa badino ayaa la inooga baahan yahay waxa kale oo walaalayaal aan kaga faa'iideysanayna bishan barakaysan in aan soo aftursiino walaalaheena kale ee muslimiinta ah ee aan iyagu waxba haysan in aynu aftursiino ayaa la inooga baahan afturka aan aftursiinayna waxaan ka helaynaa ajar ayaynu ka helaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo inagu siinayaa marka waa bil khayraad farabadan xambaarsan aynu ku dadaalno إن عمل كستو إلهي سبحانه وتعالى لوجو دواريا إن عن نكود دالنا وحكلا له إنه جبهي أنك فائدة نساب بشابر كيسن الاعتكاف في العشرة الأواخر إنه اعتكافنا طبعا كدم مركزي إلهي سبحانه وتعالى فضل قديرات أوجلية هبينك قالجة أوجلية إن أينو كفائدة سنة رسولك إن عليه الصلاة والسلام وحوها طبعا كدم كي كنت قديش كدكته markaasi soo jeeda ay rasuulku kaleeyhi salaatu wasalaam waxaan kaloon kaga faa'iideysanaa bisha barakaysan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayraadka farabadan dhaxdeen in aynu badino nawaafisha salaadihi nawaafishi in aynu badino ayaynu kaga faa'iideysanaa insha Allah ta'ala oo inayna dhaafin salaad kastaba sunnaheegi in aynan dhaafin ayaynu ku dadaalaynaa waxaan kale oo markaasi aan kaga faa'iideysanaa in aynu ku sabirno dhibaatooyinka dadka kale inooga imanay as-sabru ala adha al-akharin in aynu ku sabirno laana waxaad arkaysaa dad badan oo markaasi iyagu ficilo kala duwan la yimaada dadkaas oo dhan waxa loo baahan yahay in aynu ku sabirno oo aynu soonkeena ilaalino
oo aynu dul qaadanno ayaa laynooga baahan yahay. waxaa kaloon kaga faa'iidaysanna walaalayaal bishaa barakaysan ee khayrka faraha badan xambaarsan katratu ducaa, in aynu badinno ducada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu barinno inuu ilaahay inaga aqbalo camalkaa aynu qabanayno inugu dhowaanayno, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo fududeeyo cibaadada iyo camalkaa saalixa. al-istikfaar ayaynu kaga faa'iidaysanaynaa inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala istikfaar weydiisanno oo dunuubtii iyo gafafkii inaga dhacayay aan ilaahay naga dhaafan nidhaahno oon ilaahay barinno. leanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii ahaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala istikfaar weydiisan jiray maalintii in ka badan 70 jeer ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay weydiisan jiray, ow 100 mara ama 100 jeer ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay weydiisan jiray istikfaar iyo dembi dhaaf isagoo macsuum min adunuub ah. innagana waxaa laynooga baahay walaalayaal in aan kaga dayanno rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dunuubtii iyo gafafkii iyo akhdaadii inaga dhacday inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan weydiisanno inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga dhaafo. waxaan badinaynaa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaynu badinaynaa in sha allahu tacaala. qofka markaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu salliya sala allahu biha 10 ilaahay subxaanahu wa tacaala 10 jeer ayuu ku salliyaa. bishaa barakaysan walaalayaal ee khayrka faraha badan leh aynu ka faa'iidaysanno. saxaabada iyo dadkii wanwanaagsanaa ilaahay waxay bari jireen 6 bilood bay bari jireen inuu ilaahay gaadhsiiyo, 6 biloodna waxay ka bari jireen ilaahay inay camalkii ay qabteen bishaa ramadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka aqbalo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu camalka iyo cibaadada aynu qabanayno bishaa barakaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga aqbalo. cibaadadana ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo fudeeya ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.